qaybtan waa qaybtii 13aad EVC Plus to Dogecoin iyo Dogecoin. Sida haddii Dogecoin haysto EVC Plus aad rabtid qaabka lacagta loogu sarrifto ayaan ku tusi doonaa. Koodii appka applicationkaad galaysaa, applicationka Play Store-kaad galaysaa, waxaad kusoo degsan kartaa qaabka la iska diiwaangeliyo. Hadaa ka seenina part 1 aad soo daawanaysaa, part 1 ka fiiri meesha. Okay, waxaan rajeynayaa inaad fahantay. Kadib application markuu sidan kuu soo baxo meesha waxaa ka dooranaysaa EVC Plus. Halkan waxaa ka dooranaysaa Dogecoin aa rabaa leedahay lacag EVC Plus aa haystaa. Dogecoin yani sawir aan ma ugu jiro. Halkan ku dhufanaysaa markaad dooranayso Coinbase ku dhufo Dogecoin markaad rabtid. Halkaasna waxaa ku gelinaysaa lacagta rabtid $5 iyo bar camal. $5 iyo bar camal kadib waxaa ku dhufanaysaa exchange ku dhufanaysaa. Dogecoin aa rabtaa ayaa meeshaas Coinbase qaabka ugu dooranaa ku tusi doonaa. Kadib meeshan waxaa ku gelinaysaa Coinbase wallet meesha ku qoran tahay hoosteed waxaa gelinaysaa Dogecoin addresska Dogecoin-ka ayaa gelinaysaa. Addresska Dogecoin-ka waa kana oo lacagta lagu soo diri lahaa. Addresska Dogecoin-ka oo lacagta lagu soo diri lahaa ayaad gelinaysaa. Dogecoin ku dhufo waa kana. Dogecoin ku dhufo kadib receive ku dhufo. Kadib halkan ku dhufo copy. Kadibna waa soo copy gareysay. Kadibna meeshaas geli. Halkan hoose waxaa ku qortaa coin name coin-ka aad rabtid magaciisa camal ayaa ku qoraysaa Dogecoin. Haddii Litecoin tahay Litecoin ku qoraysaa, Dogecoin ku qoraysaa. Kadib waxaa dhahaysaa confirm exchange. Kadib kana copy soo leedahay ama number yariis hadaa haysato akoonkaas ku diraysaa lacagta aad meesha ku soo qortay ku diraysaa. Okay, halkan aad taabanaysaa okay-ga. Kadibna halkan bast ku leedahay meeshan lacagta $5 iyo barka ayaa qaabkaas ugu qoraysaa. Kadib okay aad leedahay Somali Safe ku soo bixayso. Kadibna saas ugu diraysaaba. Fahantay? Kadib waa kaasa ma hubtahay in wax kaga iibsanayso Somali Safe online $5. kadib pinkaada gelinaysaa. Markaa lacagta dirtid waa soo bixaysaa. Halkan ay imaanaysaa meeshan numberka lacagta ka soo dirtay gelinaysaa. Numberka lacagta ka dirtay markaad soo geliso kadib submit aa leedahay. Submit markaad wax kale shuruud kale kuma dhibno. Halaas meeqay nuu qaadatay inaad ku furan 2 daqiiqo bes ayay nuu qaadatay inaad qaabkaas u sarrifno. Kadibna hoos soo bixaysaa waa kana pending waaye. Kadib markii laga hubiyo lacagta gaarto kadibna lagu approve gareey doonaa. Kor soo jiid approve ayaa lagu soo qori doonaa. waa kana mujida lacagta soo dirto waa la soo approve gareey camal. Hadda kadib waxaad fiirsanaysaa balance kadibna lacagta meeshaas kugu soo galaysaa. Okay, qaabkee hadana Dogecoin haystaa EVC Plus aa rabaa qaabkee ula baxaa. Sida ula baxaysid halkan select currency dooro. Kadib waxaad ka dooranaysaa Coinbase ka dooro. Coinbase ku dhufo. Kadibna meeshan select currency ka dooro. waxaa ku dhufanaysaa hadana yani waxaa ku dhufanaysaa EVC Plus aa rabtaa maano EVC Plus ku dhufo. EVC Plus sidoo kale qaabkan la maraysaa Litecoin hadaa la bixaysid hadaa Bitcoin la bixaysid qaabkan la maraysaa iyo Bitcoin hadaa ku shubanaysid iyo Litecoin hadaa ku shubanaysid qaabkan la maraysaa oo hadda Dogecoin aa marna ma fahantay. Marka cashir in waxaas kama diyaarinayno hadii halkan fahantid kan kalena waa fahantay. Kadib meeshan $5 iyo $5 bes ku qoraynaa. Kadibna waxaan ku dhufanaynaa exchange ku dhufanaynaa. Kadib halkan hoose numberka lacagta lagu soo diri lahaa gelinaysaa. Kadib confirm exchange ku dhufaysaa. oo wareegana soo baxayo. Kadib qaabkan ku soo baxay ma fahantay. Intaan oo dhan hadda Dogecoin aan dalbani waxaan kale ma aanan dalbanin Soma Dogecoin ayaa dalbani waa kana Dogecoin-ka ku dhufanaynaa button-ka Dogecoin-ka ayaa click dhina Dogecoin-ka ku dhufanaynaa. Kadibna addresska lacagta copy ku dirina lacagta soo diraysan 82.0 inta la copy leedahay ma qoraysid hataa wax qoraysid ma aan fahantay. Halkan copy dhina addresska copy dhah. marka copy dhah trust wallet ka soo gal lacagta ku dir marka
waxaa ku dhufaneynaa Dogecoin-ka ku dhufaneynaa, kadib send ayaa taabaneynaa, kadibna meeshaan paste ku dhahaynaa addresskii soo copy gareynay, kadib lacagta xataa soo copy gareyneynaa aan direyno, halkaan ku dhufaneynaa copy ku dhufaneynaa lacagta aan direyno, kadib meeshaan gelineynaa, kadib korkaas taabaneynaa continue. Markaa taabano continuous, kadib waxaad taabaneysaa confirm exchange, kadib hadda wixii ka dambeeyo lacagtaada ayaa la check gareynaa daqiiqada kadib, asaga si automatic ah kuu check gareynaa, kadibna EFC Plus ayay lacagtaada kugu soo galaysaa. Waa kaas ma jeedaa, thank you, lacagtaada waa la heli, lacagtaada markaa la helo soo kuu sheegayaba. Okay, kadib continue ayaa dhahaysaa, akoonkaada ku laabanaysaa. Qaabkaas asana loola baxaa, ma fahantay? Qaabkaas loola baxaa. Waxaan rajeynayaa inaad fahantay qaabkan. Kaliya waxay u qaadatay 6 daqiiqo inaan la baxo iyo inaan ku shubo. Okay, waxaan rajeynayaa cashirka inaad si fiican u fahanteen. Waxyaalaha dhan waa ka helaysaa e-dahab, Torrent, Telesom xataa uu iibsan kartaa. Waxaa rabtid Perfect Money, Buyer, Golis, EFC Plus, e-dahab, waxyaalahaas dhan waa ka helaysaa iyo Kombesa, ma fahantay? Qaabkaas ayaad lacag ugu sarfan kartaa. Waxaan rajeynayaa qof walba inuu fahmay. Insha Allah. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.